السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله isku soo noqod wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bahaatan ku soo dhawaada warkiyo fidsan waxaan idin la socodsiinaysaa anigoo ah Raabica Axmed wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ayaa soo gaaray magaaladeena Diridhabe wafdigan madaxweynaha waxa ku wehelinaya madaxweyne ku xigeenka dawlad deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax iyo sidoo kale madaxa sirdoonka qaranka General Aadan Maxamed مسؤوليintani ayaana shir la galay duqeyda uu hogaaminayo ugaas Mustafa iyo maamulka magaalada Diridhabe sidoo kale mudane Aadan Faarax ayaa shirkani kadib la hadlay saxaafadda isagoona tacsi u diray dadkii ku geeriyooday dagaaladii ciidanka canfartu ay ku laayeen shacabka galbeedka City Bismillahir Rahmanir Rahim wafdi ka socda dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaan soo gaadhnay magaalada Diridhabe waxaan shir la galnay ogaaska sharafta leh ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim odayaasha gobolka City iyo dhalinyarada gobolka City marka hore walaaliheen intay ku dhimatay magaalada Cadaytu dan la helay iyo meelaha kale sida xaq darrada loo dilay aad iyo aad baan uga xunahay waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo kolka guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u diraynaa tacsiid tiiraanyo leh dhacdadaas foosha xun aad iyo aad baan uga xunahay aad bay noo damaqday kolka waxaan rabnaa macnaha ka xukuumad ahaan inaan aad uga xumaanay kolka dhammaan shacab weynaha ku dhaqan gobolka iyo guud ahaan deegaankaba tacsiid tiiraanyo leh ayaan u diraynaa madaxweyne ku xigeenka oo ka hadlayay sababihii loo hoosgeeyay saddexda magaalo deegaanka Cafarta ayaa waxa uu yiri sida tan salooda ogsoon yahay saddexda magaalo ee kala ah Garbaciisa Cadaytu iyo Cundhufo shacabka ku dhaqan muddo badan bay su'aalahooga iyo cabashooyinkooga dastuurka ku salaysan ay jeedinayeen nasiib darro jawaabtii ku habboonay lagama siin waxa dhacday hab aan waafaqsanayn dastuurka dalka in loo go'aamiyay saddexda magaalo in lagu daro deegaanka Canfarta go'aankaas hogaamintii hadda ka hor joogtay heer qaran ay gaadheen tiyo shacabku diidan yahay uu leeyahay dastuurka wadanka ma waafaqsano su'aalaheena cabashooyinkeena hab waafaqsan dastuurka dalka hal noogu jawaabo jawaabta ku habboon hal naga siiyo in la nagu qasbo go'aan aan waafaqsanayn dastuurka dalka ma aha isagoo leh ayaa dawladdu ku adkaysatay in lagu daro kolka muddo kadib waxa halgan laga sameeyay sidii loo ogaan lahaa xuquuqda ay shacabkaas ku yeelan doonaan deegaanka sida sharci darrada loogu daray kolka halgankii adkaa ay shacabku soo galeen ayaa ugu dambeyntii waxa ka dhashay in heshiis la galo heshiiskaasna in lagu cadeeyo shacabka ku dhaqan saddexda magaalo xuquuqda ay ku yeelan doonaan dawladda deegaanka Canfarta inay luqadooda wax ku baran doonaan inay iyagu ismaamuli doonaan saddexda hay'adood ee dawladdu ka kooban tahay haday tahay hay'adda fulinta sharci dejinta iyo hay'adda garsoorkaba inay yeelan doonaan in mashaariic horumarineed oo noloshooda wax laga bedelayo loo sameyn doono loo fulin doono miisaaniyadda ku baxaysa hawlaha horumarineedna iyo guud ahaan maamulkana deegaanka Canfartu inay bixin doonto deegaanka Soomaaliduna dhinaca manhajka inuu ka taageeri doono kolka laga bilaabo maamulka iyo wax qabad kasta oo laga qabanay saddexda magaalo qarashka ku baxaya in deegaanka Canfartu ay bixin doonto isla markaana shacabka halkaas ku dhaqan maamulada heerarka kala duwan ee dawladda deegaanka Canfartana inay saamigooda ku yeelan doonaan ayaa markaa lagu heshiiyay balse nasiib darro heshiiskii la galay sidii la rabay looma fulin qodobadii loo ballan qaaday shacabka looma fulin taasna waxay dhalisay cabasho shacabku inay cawdaan inay su'aalo ka keenaan go'aankii hore ayay keentay
madaxweyne ku-xigeenka oo hadalkiisii sii wata ayaa waxa uu yidhi kadib markii la hirgelin waayay waxay labada deegaan ku heshiiyeen ayaa waxa ay shacabka labada deegaan ku muujiyeen xuquuqahooda banaanbaxyo nabadaysan. kolka ugu dambeyntii magaalada Cundhufo ayaa shacabku banaanbaxay ka sameeyeen. banaanbaxaas si nabadgelyo u bilaabmay, si nabadgelyo u dhamaaday. ugu dambeyntii calankii deegaanka Canfarta in la dejiyo oo calankii deegaanka Soomaalida in la saaro ayaa timid. arintaas tii oo go'aankii hore si sharci ah oo nidaamka dalka waafaqsan aan moogtahay looga noqon in calanka la dejiyo waa khalad bay dawladdu tiri. shir baa loo qabtay shacabkii. ugu dambeyntii shacabku way aqbaleen calankii deegaanka Soomaalida waa la dejiyay, balse nasiib darro liyu booliska deegaanka Canfarta ayaa shacabkii soo weeraray. dad rayada oo waxba galabsan ayay dileen, in badan bay dhaawaceen, dad badan baa ku barakacay halkaas. markay arintaa dhacday deegaanka Soomaaliduna si adag buu la hadlay, cid kastoo khusayso ayuu arintii kala xaajooday. ugu dambeyntiina waxa la diyaariyay shir deegaanka Soomaalida, deegaanka Canfarta iyo dawladda federaalku ay isku yimaadeen si xal waara loogu helo dhibaatadaas. falanqayn ballaaran kadib madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa, madaxweynaha deegaanka Canfarta, wasiirka wasaaradda nabadgelyada Marwo Mufarixaad, madaxweyne ku-xigeenada labada dawlad deegaan, hogaanada nabadgelyada iyo qaybaha kale ee khusayso ayaa ka qayb qaatay. guddi baa la asaasay. waxaa la isla gartay liyu booliska deegaanka Canfarta saddexda magaalo in laga saaro. shacabku waxyaabaha ay ka cabanayaanna in fagaarayaal loo diyaariyo oo la dhageysto oo lala kulmo maamulada saddexda magaalo, odayaal dhaqameedyada, culamaa u diinka, dhalinyarada, haweenka iyo wixii la mid ah. go'aankaas wadajirka loo gaadhay in la fuliyona guddi baa loo xil saaray. geesta kale maruu ka hadlayay wadahadaladii dhex maray mas-uuliyiinta labada dawlad deegaan iyo dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah deegaanka Canfartu ay ka soo horjeesteen heshiisyadii. markii loo dhaqaaqay in la fuliyo qayb ka mid ah deegaanka Canfarta ayaa go'aankaas ka soo horjeesatay. waxay dhaheen saddexda magaalo maadaama deegaanka Canfarta ka mid yihiin, ciidanka liyu booliska ka baxa in la dhaho waa khalad. wadadii awaas bay xidheen. kadib dawladdu ahmiyad gaar ay siisay, shacabkii bay la hadashay. ugu dambeyntii waa la furay, balse nasiib darra haddana waxaa dhacday liyu booliskii inay shacabka soo weeraraan oo halkaasna dad fara badan ay ku naf waayaan, dad fara badanna ay ku dhaawacmaan, dad fara badan oo Soomaaliyeedna ay ku barakacaan. taasna waxaa dheer dadku raashin la'aan, biyo la'aan, guud ahaan waxyaabihii asaasiga inay waayaan baa dhacday. runaantii taas aad baan uga xumaanay. cid kasta khusaysana waan kala hadalay. ugu dambeyntii waxaa la isla gartay in raashin degdeg ah la gaadhsiiyo, liyu booliskana in saddexda magaalaba laga saaro. dadkii shacabka rayidka ah dhibta u geystana in lala xisaabtamo oo sharciga la horgeeyo ayaa la isla gartay. ugu dambeynna isagoo ka hadlaya ujeedooyinka ay diridhaba u imaadeen ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ah sida tan. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Generaal Aadan Maxamed oo ah madaxa sirdoonka Itoobiya iyo anigoo ah madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaan nimid magaalada Dirdhaba. waxaan la kulannay ugaas Mustafa, odayaal dhaqameedyada iyo dhalinyarada. waxaan kala xaajoonaynay kow in colaadda la joojiyo oo colaadaasay u joogsan lahayd, dhiigga islaamka daadanaya sidii loo joojin lahaa, dhaawac iyo barakaca sidii loo joojin lahaa. cid kastaba kaalinta kaga aadan inay ka geysato. xukuumad ahaanna inay naga go'an tahay dadkaas dhibaataysan in gargaar degdeg ah la gaadhsiiyo, hadday raashin tahay, biyo tahay, daawo tahay iyo taageero kasta oo ay u baahan yihiin in la gaadhsiiyo. dawladda federaalkuna waxay qaban karto inay qabato, balse dhinaca kale cid kastaba kaalinta kaga aadan sidii dhiiggaas loo joojin lahaa, isku dhacaas loo joojin lahaa, dhimashadaas loo joojin lahaa inay falagoyd gasho. taasna fahan midaysan baa laga qaatay. odayaal dhaqameedyadu iyo dhalinyaradu waxay ballan qaadeen inay ka shaqayn doonaan sidii colaadda loo joojin lahaa, sidii isku dhacaas loo joojin lahaa, sidii dhimashada, dhaawaca iyo barakaca loo joojin lahaa. dhinaca kale waxaa soo kordhay jidkii Jabuuti iyo Dirdhaba isku xidhayay in qaybo ka mid ah la xidho
shacabkii gadooday ee ka xumaaday dadkii la xasuuqay gacanta ka gardaranay si xun u taabatay inay jidadka xidheen kolka taana tii oo la isla kaashanayo in jidadka la furo taana waa lagu heshiiyey